wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha jagada wasiirka hawlaha guudulka iyo guryeynta iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka qayb galay madal boosas dib u dejin loogu sameeyo dadkii hantidooda ku waayay dabkii ka kacay suuqa idaacadda. madashan oo ay ka soo qayb galeen ganacsatadii ku waxyeeloobay dabkii ka kacay suuqa idaacadda iyo mas'uuliyiin kale ayaa ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha jagada wasiirka Muuse Asir Guuled isagoo ka warramay doorka ay ku lahayd wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland. annagu waxaan nahay nimankii dhulka ku daaqay dhulkaas runtii waxaad arkaysaa meel kasta oo la ilaaliyo oo la xafido in maalmaha kamid laga faa'iideysto doono dhulka aan calafka u yeelateen in badan baan ay dowladihii isbedelay iyo wasiiradii isbedelay ay ku gacan adkaayeen in cid la siiyo ama marka runtii inaynu maanta ka faa'iideysano waxuu dhul qaran yahay oo aad maanta nasiib u yeelateen in masiibadii halkaa ka dhacday aynu ku daboolo dhul inoo seefaha oo aynu haysanay oo qaranku leeyahay taas waxay muujinaysaa in dhulka la ilaaliyo in dhulka aan la boobin in dhulka sifo khaldan aan lagu qaadanin ee maalinta loo baahdo ama ay mudan tahay in laga faa'iideysto dhankooda halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka hawlaha guudulka iyo guryeynta iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga jamhuuriyadda Somaliland oo iyana walaalayaal waa ogtihiin wixii nagu dhacay suuqa ay maanta u soconana waa suuqa halkaa ku sawiran oo aynu doonayno inaanu wixii hore oo kale nagu dhicin aynu ka tabaabushaysanno kuwa inoo harayna sidaa suuqa gobonimo oo kalena iyo suuqyada kale magacaasimadaha dalka aynu uga tabaabushaysanno in dabkaasi mar dambe sida aynu heligin maanta waxaynu soo gaadhnay gebagabadii inaynu halkan baktiyaa nasiibkii si daha furan oo cadaalada oo dadku ku wada qanco qof waliba halkaa gacanta u geliyo oo kaarka guriga u yeelan doono kala soo baxo qayb laxaad ka qaatay hirgelinta hawshan taaka hawshan uu taagan waxa weeye in mashruucii ay u socday dhaqaajintiisii saaka aynu isugu nimaado bilowdo waa laba nooc sidaan horay ugu sharaxnay suuqani qayb hangara ah oo dadku si wada jira ugu ganacsan doonaan oo qof waliba meel yar ka heli doono sida ma garanaysaa haruugleyda iyo caanaleyda iyo maxaan ku idhaahdaa khudradleyda hangaradaasi ma garanaysa loo qaybin doono iyo qaabkii suuqii qaybtii bacadlaha labadaa qaybood buu kala noqon doonaa qaybta hore waxaa dhisi doonta xukuumadda haddii aan la yidhaah dadka halkaa markaa ku ganacsanaya qaybta hangarada haddii aan la yidhaah iyagoo qolo farsamada ay ku ganacsanayaan kala jaajaa tahay oo ilaa 5 qaybood u qaybsamayso iyaga kaararka ay hadhowto ku imanayaan meesha iyo maxaa ku dhaca kharashka meesha ku baxaya horta xagga kharashka waxba laga weydiin maayo dhinaca hangarada waxa saaka loo qaybin doonaa kaarar qof waliba ku ogaado booska uu ku shaqaysan doono oo lambarkiisu ku qoray baa loo qaybin doonaa oo iyagoo qof waliba magaciisu ku qoray baa loo xaadirin doonaa walaalayaal waa ogtihiin wixii nagu dhacay suuqa ay maanta u soconana waa suuqa halkaa ku sawiran oo aynu doonayno inaanu wixii hore oo kale nagu dhicin aynu ka tabaabushaysanno kuwa inoo harayna sidaa suuqa gobonimo oo kalena iyo suuqyada kale magacaasimadaha dalka aynu uga tabaabushaysanno in dabkaasi mar dambe sida aynu heligin maanta waxaynu soo gaadhnay gebagabadii inaynu halkan baktiyaa nasiibkii si daha furan oo cadaalada oo dadku ku wada qanco qof waliba halkaa gacanta u geliyo oo kaarka guriga u yeelan doono kala soo baxo ilaahay idamkii gubashadii kadib wax fara badan baa inoo qabsoomay qorshaha aynu doonaynaana uu inoo qabsoomi doonaa waxaana rajaynayaa insha allah biidnillahi kariim in hadafka iyo ujeeddada aynu leenahay aynu gaari doono gabagabadii ganacsatada uu khasaaruhu ka soo gaadhay dabkii ka kacay suuqan ayaa halkaasi lagu qaybiyay bakhtiyaa nasiib ay ku helayaan boosas dib u dejin ah.